كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. العاقل كل العاقل من عرف الحقيقة، من استعد للموت ولما بعد الموت، من عرف مقصد حياته. العاقل كل العاقل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. qofka caaqilka qofka dhaqaalaha badanna maaha, qofka adduunyada urursada maaha. addunyaa daaru man laa daara lahu buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. adduunyadu waxay daar u tahay ninkaan aakhira daar ku lahayn. wamaalu man laa maala lahu, dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkaan dhaqaalo aakhira ku lahayn. lahaa yajmacu man laa caqla lahu, adduunyada waxaa ururiya buu nebigu yihi ninaan caqli lahayn. caaqilku waa kee? waa ninka garta wixii adduunya kii keenay, waa ninka garta kii keenay iyo wuxuu u keenay iyo meesha loo socdo. man akyasu nnaasi wa akramu nnaasi ya rasuul allah. masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu nin soo galay, nin acraabi oo reer miya. markaasuu su-aasha nebiga u jeediyey, yaa rasuul allah, dadkii ninkee baa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi. umaba dheeraane wuxuu yidhi akharuhum lilmowti dikraa wa ashadduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum lakyaas dahabuu bisharafi addunya wa karaamati alaakhira. dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geeridaya aakhira xasuusanaya, maalinba maalinta ka dambaysana saayida aakhira ziyaadsanaya. kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi, sharaftii adduunyada iyo karaamadii aakhirana kuwaasaa la tegay buu yidhi. sharafta aakhiro iyo karaamadii aakhiro iyo karaamadda adduunyada dadka ilaahay yaqaanaa la tegay. dadka meeshay ka yimaadeen iyo meeshay u socdaan u kala caddahay baa yaqaana. يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل. بنبي كويل أبو ذر، يا أبا ذر يا أبا ذر بكيل الدون إذا جديد سو بدو يقول دار توي كل قية سعيدنا الزيادة سفر كودير يا هاي حكود دجن ولا الكيجا مسلم كو شو وقتي وحال كيجا إلى هاي أوجي هاي حكو قناعة في الدين لما أقوله قناعة في الدنيا بالله أقول يا طاعتي عبادتي هي دينتي انت هيسته ولغا كو قنعن. اما ادويدي كسبغا يا ارزاقدا انت الهي كسيه كو قنع تاسا مستحب او لجدي. وابا در ازهد امتي واعبدها بالنبي قولي وانك امديده ugu zaahidsan ugu cibaado badan. man arada an yandura ila Isa ibn Maryam falyandur ila Abi Dar buu nebigu yidhi. ninkii doonaya nebi Ciise inuu arko Abu Dar al-Ghifari ha arka buu yidhi, zuhdigiisa iyo sidoo adduunyada uga zaahiday. kaasaa nebigu dardaaranka soo mariyuu leeyahay, abaadarow doonida jadiidso, iimaanka jadiidso, qalbigaaga adduunyada kala dagaalam, qalbigaaga cadamada lacagta maxabada lacagta kala dagaalam. baddu way ku liqi haddii kale, shahawaad iyo qaflad baa adduunyada lagu sheeriyo way ku liqi haddii kale. wa akthar izaada fa ina safara tawiil. sahaydana ziyaadso safarku uu dheer yahay buu ka yidhi abudarow, safarku uu dheer yahay. sayidina abaa hurayra radia allahu canhu ayaa sankaraadkii ooyey. markaasaa lagu yidhi abaa hurayra maxaa loo ooyeysaa? saaxibu rasuulillaahi baa tahee. wuxuu yidhi abkii liqilati zaadii wa bucda safarii. sahaydaa wata yarideeda iyo safarkay sugaya islahayn buu yidhi. hada abu dar. cumar radia allahu canhu waa ninkii nebigu yidhi low kaana bacdii nabiyan lakaana cumar. haddii aniga nebi dabaday iman lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi. jannadaan galay buu nebigu yidhi habeenkii micraashka qasri jannada ku yaalla ayaan arkay, gabadh xawraa ayaa igaga soo baxday buu rasuulku yidhi. markaasaan ku yidhi liman hada alqasri, gurigan ayaa loo diyaariyey qasriga intan leeg. waxay tihi nin carab ka dhashaa loo diyaariyey, anigaaba carabe ma cid kalaa? haa nin qurayshaa loo diyaariyey, quraysh ka dhashay, anigaaba qurayshe ma cid kalaa? haa nin ummadda nebi maxamedaa loo diyaariyey, anigaaba muxamede ma cid kalaa? haa bay tiri cumar bnu khadaab baa qasrigan loo diyaariyey. hada cumar. walaakiin muxuu yidhi masaajidkii nebiga khudbaduu ka jeediyey wuxuu yidhi low naadaa min asamaa
كلكم داخلون الجنة إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون هو هدي السمد اللي قد واقول لي بني آدم كنا الجنة يقليان هل ننكليا نار كقلايا نقاسيني أني تهانو ملين بورنجري قناعة في الدين لما أقوله ولا الكيغا مسلم كو دين انت هيستوها كو قنع الدوية انت هيستوها كو قنع تاسا مستحبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قرنيا قرونتا الدوية الصومر تقرنيا خير من نابي جوجين ساسين إلهي وقعب سونيين الدوية لما وينين آخرة لما وينين أسبابتي أشياء لما وينين عملك الصالح إيمانك لما وينا مخلوق لما وينين إله خالق عمر كيسان لما وينا من لم يرضى بقضائي ولم يصبر البلائي ولم يشكر على نعمائي فليخرج من بين السماء وأرضي فليلتمس ربا سوائي بإلهي حديث القدس من لم يرضى بقضائي قضاها وحي أنكحكم أدونك الرالي أنا كوهين نعمة دايدنا أن يقول شكريين بلايا أنو كيننا كسبرين سمدي أرلد عنك سميستها إيجتو ملك الحقبتو ربك لن سميستها بإلهي إلى أين حكون مشغول شهواتك أرزاقت هنقري واحد عنا يسوينون كبسيجين طاعة إلهي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي عن طاعة الله قرآنك ودعوت لما يسترن ويان ودعوت تامة إلهي ودعوت إلى الصنايا وبتكاغو وبتكانوا الشقايا وبتكانوا ورديا يحولها قاد حسابين يستطاعة إلهي كبسيجين النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها الدوية هل كان الجنة دي النار تبا لقد يارسانيا هل كان لقد يارسانيا هل كان الجنة دي لقد يارسانيا نارتين هل كانوا لقد يارسانيا أعماشي الجنة اللي قلي هل كان لقد قادنيا أعماشي نارت اللي قلي هل كانوا لقد قادنيا فهيلو من طاعة إلهي أفر عدو بقرآنك إلهي نو شيء أفر تعدو ني والله والله دقالم نفتاد وعدو ويان إن النفس لأمارة بالسوء الديد وعدو جن ويان فلا تغرنكم الحياة الدنيا شيطانك وعدو جن ويان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هود وعدو جن ويان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هادع النفط هذا شيطان كان هادع الديد هادع طاعة إلهي إنك سجن الدوية إلهي كوجع إلهينا أوصيا كوجع علينا أوصيا نبينا عليه الصلاة والسلام أيام مالين كسحدي حصير صلبوا كسحدي بقحدي بأمريكا فرحها كقبتي عمر بعد دولي مدول للميي وكوكع النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر بوكيد محاكا وهنا وحول يا رسول الله وحايقوا هنا يقول هذه ورسولك إلهي أيا بقحدي فرحها كقبنيسا مركز النبي كوير يا عمر ما دي قشي كسنتها يعني ما يكلا كامشي كسنية وحي عنتملا هذه الرسولك إلهي ومخلوق أو خير بدنا إني دقحذ فرعها كاقبته كسر يا قيصر نسر الذهب أي كس إحدان جواب تدقيسو ولا الكيغا مسلم كو وحيري يا عمر أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا يا عمر وما أدرى لك وهين إني الراحة الدوية يكون لحنا كالسناء قاتان إنكم الراحة آخرة نسك قادم مسلمكم مؤمنكم لدوني ما يصدقك كلاينو فكرو مال بعضو سعوتا تدنبها كل وينات تنك كتقل قمالي تدنبها دي كل وينات تنا دويد وي معانان هاد بقوفك انت العقد وزيادة الراحة ومزيادة وقو هاد بقوفك انت الدويد وزيادة والولي والبهار كاكو زيادة هاد بقوفك انت إيمانك يدينتي قرب من الله يود وادنا راحة يا وزيادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قفك عمل وناكسن لي ماذا عمل وناكسن شنطة وقتي والجمع كنت كتاياك ماذا عملك وناكسن من ذكر أو أنثى لبي يديك متكو دوني بهان نغضب إلى هيدي لبي يديك متكو دوني بهان نغضب وهو مؤمن حاله وقفك مؤمن هو إيمان لي هي فلنحيينه حياة طيبة وكنا لينا نلن لقنا لا توبو وناكسن مفسرين توحيد هذا النوش وناكسن وصدح ويام قلبك وكود دقا أرزاقك وكوف اللاتا يددك وكود جعلادا صدح لا وحي لهي كوب اللنق هذا إنه كوبهن إيماني عمل صالح ديدتك لقاه له
iimaan iyo camal saalix. marka lagu leeyahay diinta ilaahay qabso, awaamirta ilaahay adkayso, ma aha adduunyada kaa nuqsaamaysee bal adduunyadu way kuu ziyaadaysaa, raaxa kuu ziyaadaysa, amnigaa kuu ziyaadaya. man kaanat iddunya hamahu jacalahu allahu alfaqra bayna caynayhi wafaraqa shamlahu walam yaatihi min addunya ilaa maa kutiba lahu. ninka hamigiisa ka dhiga buu rasuulku yidhi adduunyada qabo un ka fikira, aakhiradii runtahaydna daaqada ka saaray iska ilooba. labada indhood inta udhaxaysa faqriga loo saaraa, arrimihiisana bari iyo galbeed baa rabbilciza ku kala shaydhiya, adduunyadana maba hela intii alla u qadaray mooyaane. waman kaanat alaakhiratu hamahu, ninka hamigiisa ka dhiga buu rasuulku yidhi aakhiro, jacalahu allahu ghinaahu fii qalbihi, qalbiga ayaa hina iyo raaxa looga buuxiyaa. wajamaca allahu shamlahu, arrimihiisao dhanna ilaahay baa iskugu soo dhoweeya. wa aatatu dunya wahiya raaqima, adduunyadana waxay u timaadaa iyadoo sandullaysan oo hoos socotay timaadaa buu rasuulku yidhi. ha ka sii jeesan daacadda ilaahay walaalkayga muslimkow. diintan wuxuu ilaahay noo siiyey si adduunkan iyo aakhira aan ugu liibaano. manaaficu diin, manfacada diintu aakhire keliya kama bilaabantee adduunyadana diinta lagu dhargayaa, adduunyadana diinta cizi lagu helayaa, adduunkana diinta raaxa lagu helayaa, adduunyadana diinta amni iyo nabadgelyo lagu helayaa. yaa aalib arisqi fi dunya biquwatihi, dadka maanta intooda badan daacadda ilahay waxay ku dhaafaysaa waa hungurigaas. ismac, yaa aalib arisqi fi dunya biquwatihi taduuru fiiha min baladin ila baladin atcabta nafsaka ma lasta tudrikuhu wadaaca cumuka fi hamrin wa fi nakidin low tirta bayna asamaa'i waalardi mujtahidan sharbata maa'i hayra risqika lam tajidi. haddaad hunguriga meel kasta u marto, iska daa arlada intood shaqo ka weydo, haddaad samada shaqo lagugu sheego ood u doonato shaqo, kabasho biyo kuu qorayn ma soo qaadaysid. aqsir canaa'aka fa ina risqa munqasimun yaati ilayka walow fi jabhati lusudi. tacabkaaga yaree ha isdaalin, xoogaaga iyo caqligaaga iyo cimrigaaga adduunyada ha ku dayicine, kala reebo oo aakhiradaadi ha seegin. arsaaqadaadu hadday libaax foodiisa taallo ayadaa kuu imanaysee, laa tacjalanna fa ina risqa laysa bilcajali. ha degdegin, arsaaqada xoog iyo qafqaf laguma hele, risqu maktuuman bilawxi maca alajali. arsaaqadaadi iyo cimrigaagu waxay ku qoran yihin loox maxfuudka. ma dhimanaysid ilaa arsaaqadaada aad dhamaysatid maahin. low sabarna lakana risqu yatlubuna walakinahu khuliqa alinsaanu min cajali. haddaan sabri lahayn risqu isagayna soo doonan lahaa, laakiin bini aadamkana iska degdegay mar walba, wax walba degdeg buu ku doonaya. aqulu ma tasmacuun waastaqfiru allaha lii walakum wa huwa algafuur alraxiim. alxamdu lilah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها. أفر شيء qof kastoo muslima ayaa laga rabaa inuu iimaankiisa ilaalsado, inuu iimaanka jadiidiyo, inuu iimaanka ziyaadsado, iyo inuu iimaanka caalamkao dhan dadka ugu yeedho iimaanka. diintaada ilaalso, diintaada mar walba cusboonaysiiso, diintaada baro. diintan caalamkao dhan baa ilaahay ugu talagale, risaalada caalamka siday u gaari lahaydna adiga laga rabaa. diinta ilaalso, kuna qanac, diinta ku qanac. sayidina cumar radia allahu canhu ayaa nin yahuudi oo saaxiibi ay yihiin oo reer bani quraydu madiine ku soo maray. kalimaad diintii nebi muuse ka mida ayuu ka soo qoray. wuxuu soo galay masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam. cabdullaahi binu thaabit iyo nebiga wada fadhiya buu u yimiday. alaa acraduhaa calayka yaa rasuul allah buu yidhi, yaa rasuul allah ma kuu bandhigaa?
nin reer bani quraydo saaxiibanahay baan kalimaad tawraada ka soo qore fatagayara wajhu nabiyi calayhi salaatu wasalaam midabkii nabiga isbedelay bal fiirso midabkiibaa isbedelay midabkii rasuulka cabdullaahi baa yidhi yaa cumar hakiladka ummuk waydaa gablantee nabiga wejigiisa miyaanan cadhada ka dareemin cumar u naxay warqadii buu tuuray wuxuu yidhi radinaa billaahi rabban ilaahay rabbinimadiisa raalli baan ku noqonnay wa bilislaami diinan diinta islaamkana waan ku qanacnay oo raalli baan ku nahay dhaqan ahaan raalli baan ugu nahay caqiida iyo cilmi iyo cibaadaba wa bimuxamadin sala allahu calayhi wasalam rasuulan wa nabiya nebi maxamed risaaladiisa iyo nebinimadiisana waan ku qanacnay buuhi raalli baan ku nahay fasura nebigu wuu farxay mambarkiibuu fuulay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ismac yaa akhi dhegayso dad aan waxba ahayn oo laysku ekeysiiyo dadkeenu isku ekeysiiyaan iska daaye undur hadalka nebigu ku hadlay calayhi salaatu wasalaam low asbaxa muusa fiikum uma itabactumuuhu wa taraktumuunii la dalaltum buu yidhi haddii maanta nebi muuse uu nidhex iman lahaa anoo inidhex taagan oo aad isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen buu rasuulku yidhi antum xadii min alumam wa ana xadukum min annabiyiin nasiib ayaad ii tihiin buuhi ummadihii aan ka helay nasiib ayaan ini ahay buuhi nebiyadii aad ka hesheen buu rasuulku yidhi haddii nebi muuse maanta uu iman lahaa uu shareecadiisii tawraad la iman lahaa ood aniga iga tegi lahaydeen ood isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen buu rasuulku yidhi antum xadii min alumam ummaddii ummadaha ugu khayr badnayd ummadda abuuritaanka ummadaha ugu dambaysa jannadana gelitaanka ugu horaysa ummadda jannada inta badan degaysa maadaama oo tihiin nasiib ayaa inagu helay buu nebigu uhi nasiibkayga ay kii siiyey maadaamuun aniguna ahay nebigii nebiyada ugu dambeeyey imaamkii ambiyada maadaamuun ahay nasiib ayaad igu hesheen buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ee shareecadayda iyo diintayda iyo milladayda iyo sunnadayda iyo dariiqadayda ku qanca buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam wax lagu badilan karaa ma jiro dariiqadiisa ummadiisii baa ilaahay naga dhigay ummaddan waa ummadda ummadaha ugu khayr badan ana wuxuu nebigu yidhi xurimat iljannatu cala alambiyaa xataa adkhulahaa jannada nebiyadu geli maayana waa laga xarimay ilaa anuu aan ka gala maahine wa xurimat iljannatu cala alumam xataa tadkhula ummatii ummaduhuna jannada geli maayaan ilaa ummadaydu ay gasho maahine qabuuraha ayuu nebigu ziyaartay baqiic markaasuu u duceeyey wadidtu low annii ra'aytu ikhwaanii waxaan jeclaaday buuhan jeclaysan lahaa inaan walaalahay arki lahaa asxaabtu waxay ku yidhaahdeen awalasnaa ikhwaanaka miyaan anaku walaalaha ahayn laa antum asxaabii ininku asxaabtay baa tihiine walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ee rumayn doona iyo kuwa aniga arag buu rasuulku yidhi sideed u garan doontaa saxaabadu waxay yidhahdeen dadkaas maabad arakin adigu iyakuna kumay arag sideed u garan doontaa qiyaamaha halkay wejiga dhulka dhigayeen ee weysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdka igu iman doonaan buu rasuulku yidhi 120 saf ayaa jannada galaysa buu nebigu yidhi dadka ahlu jannuhu waa 120 saf 8 saf baa ummadayda buu rasuulku yidhi atardawna an takunu ruba ahli aljanna qulna bala cabdullaahi ibn mascuud baa yidhi nebiga maalinna urriyo wuxuu nagu yidhi raallima ku tihiin ummadaha marka loo qaybiyo 4 qaybood dadka jannada galaya 4 marka loo qaybiyo qayb inaad noqotaan raallima ku tihiin asxaabtu waxay yidhahdeen haa atardawna an takunu thuluth ahli aljanna ahlu jannaha marka 3 loo qaybiyo qayb inaad noqotaanna ma ku tihiin raalli baana ha yidhaahdeen markaasuu nebigu yidhi waladii nafsu muxamadin biyadihi innii la arjuu an takunuu nisfa ahli aljanna waxaan rajaynayaa oo ku rajo weynahay kay abuuray baan ku dhaartee jannada inaad kala badh idinku degaysaan baan ku rajo weynahay buu rasuulku yidhi ilaahay ummaddiisii buu inaga dhigay ilaahay uu ina karaameeyey wuxuu inagu karaameeyey waa maxay ummadihii hore shay keliya unbaa laga rabay keliya bas ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan amaa ummaddan 2 shay baa laga rabaa 2 shay ilaahay inaad ka yaabto waa lagaa rabaa ilaahay inaad caabuddo waa lagaa rabaa aakhiradan inaad u shaqaysata waa lagaa rabaa khalqiga adduunyada kugula noole bashariyadda inaad arrintaa ugu yeedhana waa lagaa rabaa maqarin nebigu uu caddeeyey alaa laa nabiya bacdii walaa ummata bacdikum mar buu nebigu cimrigiisa xajiyey mar keliya markiina wuxuu yidhi ani nebi iga dambeeye ma jiro ummadin iga dambaysaana ma jirte alaa falyuballaga shaahida minkum alghaa'iba kiina maanta ila jooga i maqlayow kiina maqan gaadhsii buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam balliquu canii adduu canii raximakum allah allah inii naxariistee ammaanada qaado caalamka iga gaadhsiiya allaahuma astur man nasara diina muxamed ilaahaw ninkii diintayda u gargaar buu rasuulku yidhi nadara allahu imra'an samica maqaalatii
maalinka wejiyadu ay madoobaanayaan banka qiyaame wejigiisa allaha nuuriyo ninka hal aayada ama hal xadiisa iga maqlay siduu iga maqlay ummadda u gaadhsiiyey buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. ummaddan waa ummad ilaahay doortay, sharaftaa iyo karaamadda ummaddan waxay ku yeelatay waa shaqadii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam. shaqadaas markay caalamka shaqadaa laga tegayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaanna dalkeenna ku dhacday wax kale ma aha, waa tarku dacwa. dacwadda markii laga tegay dhibaataa timiday. idaa tabaayactum bilciina waakhadtum adnaaba albaqar waradiitum bizarci wataraktum aljihaada sallata allahu calaykum adil laa yanzicu xataa tarjicu ilaa diinikum. markaad xoolodhaqata aad u jeesataan iyo beeraha qodataan, tijaaradda aad u kacdaan, shaqadii diinta iyo dadaalkii iyo halgankii diinta aad ka tagtaan, ilaahay dulli buu nuhuwinayaa. dulli niga saari maayo, dulliga niga siibi maayo ilaa diintiina aad u noqotaan maahine. ilaa diinikum baa layidhi, ilaa diinikum. diintu waxay baaqi ku noqonaysaa, salaada maaha, soonka maaha, xajka maaha. diintu waxay baaqi ku noqonaysaa fii kulli zamaan. waa in la helo juhdu dacwa. mar alli markay diintu hoos u dhacdaba ilaahay wuxuu soo saaraa culamaa rabbaaniyiina mar labaad soo cusboonaysiisa tawxiidka iyo iimaanka iyo akhlaaqdii islaamka u lahaa. ninka muadinka markuu eedaamaya buu rasuulku yidhi shaydaanku qofka uu ka baxaa 16 mayl buu sii socdaa isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaya. markuu muadinku aadaanka dhameeyana uu soo laamaa, qofka ayuu soo galaa. iqaamadda marka lagu dhiftana shaydaanku uu baxsadaa, markay iqaamaddu dhammaatana qofku soo galaa. salaadiisiiyo qofkiibuu kala dhex maraa, wixii uu iloobay buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo wuxuu tukadayba. salaadu waa farad, eedaanku waa sunne. shaydaanku muxuu salaada uga baxsan laayahay oo sunnaha uga baxsanayaa? lianna aadaanku waa dacwad, salaaduna waa cibaado weeyaan. ifham almasala walaalkayga muslimka u faham, ta keliyaad ku badbaadayso ee ku nabadgelaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan. cumar ma mara buu nebigu yihi tog, shaydaanna toga kaluu ka sii wacdaa, lianna cumar saaxibulxaq buu ahaa. saaxibulxaq. shaydaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaade, shaydaanku waxau ka cabsoonaya waa aadaanka. allahuma rabba hadihi dacwati taama, lianna aadaanku waa dacwad dhammaystiran weeyaan. sidaa darteed haddaan doonayna inaan badbaadno, falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu. dacwadda maxaa kaloo lagu helayaa? fasaadka dhacaya, cuquubada imanaysa ninka daaciga ee diinta ka shaqeeya way u badbaadayaa. imaam bukhaari kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi qaryad baa ilaahay u soo diray malag, soo halaag baa laga yidhi qaryaddaas soo halaag. malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican cilaaqa ula leh. markaasuu yaa rabbi yidhi qaryadan aad igu tiri soo halaag, addoon saalix oo caabida ku jiray waa sidii. ilaahay wuxuu yidhi fabda' bihi, cadaabka xaggiisa ka bilaab. lam yatacamar wajhu saacatan fiya, dadka aniga caasinaya keyrkii caabudaya ee macsiyada dhex dabaalanaya hal mar keliya wejigiisu kama doorsoomin oo kama murugoone, cuquubadii cadaabka xaggiisa ka bilaab baa la yidhi. ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه. فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله محمد وأزواجه وأصحابه وأهل بيته الطاهرين الطيبين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مضرودا ولا محروما. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. أمرتنا فتركنا، نهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. يا عزيز في ملكه ويا حكيم في صنعه، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق التمرة ومن لم يجد فبكلمة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلهي تبارك وتعالى ومنعم isagaa inoo nicmeeyey nicmadaha ilaahay nagu galladaystayna lama tirin karaayo lamana soo koobi karaayo hase ahaatee nicmadaha ilaahay uu bini aadanka siiyo laba nicmadood bay u kala baxaan nicmad yar iyo nicmad weyn nicmadda yar bini aadanka oo dhan bay maaragtaanay ka dhaxaysaa nicmadda weynina dad gaara ayaa khaas u tahay nicmadda yar muslimkuna uu haysan karaa kaan muslimka ahayna uu haysan karaa
waxaa ka mid a awalan ilaahay wuxuu ina siiyey nicmatu liijaad. ilaahay isagaa ina jirsiiyey, maan joogi jirin adduunyadan. ilaahay isagaa ina jirsiiyey. hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura. zaman ayaa waqti ayaa caalamkan soo maray oo bini aadankan wax la sheegaba uusan ahayn. mid kastoo halkaa fadhiya haddii da-diisa la weydiiyo uu sheegi 30 jir, 40 jir, 50 jir, haluma jar intaa doontaba sheego. intaa ka hor halkeed joogaysa? lasta bishay. horay waxba umaad ahaanayn, iminkana waxba ma tihid, ee ilaahay unbaa ku jirsiiyey. iraadadiisa iyo amarka ilahina waad ku socotaa. ilaahay bayna keenay adduunyadan, uu ina jirsiiyey, wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay. innii jaacilun fi lardi khaliifa. markuu ilaahay nebi aadan calayhi salaam uu abuurayey, malaa'igtii buu u bishaareeyey, ku yidhi waxaan samaynayaa khaliifkaygii baan samaysanayaa. khaliif maxay khaliif maxay ka dhigan tahay? arlada ku awaamirtayda ku fuliya, arlada ku aniga wakiiliga noqda, oo mashacayga iyo waxaan doonaya yeela, oo aniga i garto, aniga i adeeca, oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuuraya baa ilaahay yidhi. malaa'igtu waxay yidhahdeen ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiigga daadiya? haddaad tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annakaa ku caabudayno nuuraaniyiinoo ku caasinayne. ilaahay wuxuu ku jawaabuu yidhi innii aclamu maa laa taclamuun. waxaan ogahay waxaanad idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yidhi. marka bashar buu ilaahay naga dhigay. walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi. bani aadanka waan karaamaynay. waxamalnaahum fi lbari waalbaxri. bariga iyo baddaba waan xambaarsiinay. warasaqnaahum min aldayibaat. arsaaqada ta ugu wanaagsanna waan ku arsaaqnay. wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila. khalqi fara badan oo sameeyena insaankan aan ka karaameeyay baa ilaahay yidhi. marka nicmatu linsaaniya waa nicmad weeyaan, laakiin nicmadda muslimiinta keliya gaar uma balka kale aan muslimka ahaynba nicmadda uu la wadaagaa. waa bashar. ka majuusiga cadaada caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu samaystay caabudaya iyo kaa muslimka ilaahay caabudayaba nicmaddaas waa ay u dhaxaysaayo dadkao dhan waa bani aadam weeyaan. nicmadda yar waxaa kaloo ka mida baa la yidhi arsaaqaddu waa nicmad weeyaan. arsaaqadan ilaahay muslimiinta gaar uma siiye bal kuwa kalena arsaaqadda uu siiyaa. cabdii laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika. addoonkaygiiyo baa ilaahay yidhi adigana waajibaad iyo awaamir iyo axkaam baan ku saaray, aniguna arsaaqadaadii baan ballan qaaday inaan ku siinaayo. haddiid faraa'id iyo waajibaadkii aan ku saaray aad ka tegtana anu arsaaqada kaa goosan maayo baa ilaahay yidhi. arsaaqadu waa nicmad weeyaan, laakiin waa nicmad caama, dadkao dhan bay ka dhexaysaa. nebi ibraahim calayhi salaam martiqaadkuu aada u jeclaa. keligii cunto ma cunayn ilaa marti uu la raadsada maahine. nin martiya ayaa u yimiday, markaasuu neef u qalay, cuntadiibuu u dhigay. markuu ninkii cuntadii u fadhiistay ayaa ninkii halkaa wuxuu ku sitaa sanab uu isagu samaystay. khashab uu caabudayu halkaa ku sitaa. marka khashabkii baa ka soo dhacay. ibraahim calayhi salaam uu ka cadhooday, wuxuu yidhi soco buu yidhi kuma siinaya cuntadayde liannaka hayrullahi baad caabuddaa. uu ka socday ninkii. jibriil baa u yimida calayhi salaam. yaa ibraahim, ilaahay uu kusoo salaamaya, wuxuuna kaa yidhi addoonkaa maxaad u eridood cuntada u siin weyday? markaasuu yidhi yaa rabbi, ibraahim calayhi salaam waxaa lagu yaqaanay daa'iman caqiidada iyo tawxiidkiisu cajiib u ahaa. uffin lakum walimaa tacbuduuna buu yidhi. ininkii waxaad caabudaysaanba uf baan nidhi buu yidhi. wuxuu yidhi ninkaasi ilaahay keyrkii buu caabuday hoosta ku haystay. yaa jibriil, ilaahay baa yaa jibriil ku dhe khaliilkayga, ma maalin keliyuu ku yimidaad cunto siini weydee 70 sano sanabkaa uu samaystay caabudaa on weliba ku arsaaqaa baa ilaahay yidhi. rasaaq waa ilaahay. arsaaqadu waa nicmad weeyaan. nicmadaasi gaal iyo islaamba waa u siman tahay. bashar caqligu waa nicmad weeyaan. caqligaa dadka kaleba way kula wadaagaan. maqalku waa nicmad weeyaan. nicmadda maqalka dadkao dhan baa kula wadaaga. araggu waa nicmad weeyaan. akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum alsamca walabsaara walaf'ida lacalakum tashkuruun qaliilan maa tashkuruun. hooyooyinkiin ayuu niga soo saaray uurkooga ilaahay ininkoo waxba garanayn. markaasuu maqal inii yeelay, arag buu ini siiyey, qalbi buu ina siiyey, bashar buu inaga dhigay. nicmadaasina waa nicmad cumuumiya.
nicmadaas dadkoo dhan bay ka dhaxaysaa. muncim waa ilaahay. wamaa asbaxa minkum min nicmatin fa min allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah. waxalli waxaa nicmadaad haysataan ee gabalku iniila dhacayo waaguna iniigu baryaayo ilaahay baa ini siiyey. koonka ilaahay baa inii sakhiray, cadceedda ilaahay baa soo saaraya, amarka ilaahay baa ku soo baxaysa, amarka ilahay baa ku dhacaysaa. dhulka aad ku socotay ilaahay baa kuu ballaadhiyey. waasamaaa banaynaaha biaydin wa innaa lamuusicuun waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacallakum tadakkaruun fafiruu ila allah. samada ilaahay baa sameeyey oo ilaahay gacantiisuu samada ku sameeyey gacantiisa. dhulka ilaahay baa farishay oo ballaadhiyey. shay kastana laba ayaan ka dhignay baa ilahay hi si ad u antowdaan. dharaar iyo habeen, dayax iyo cadcaad, kulayl iyo qabow, abaar iyo barwaaqo, nabadgelyo iyo cabsi, nolol iyo geeri, xanuun iyo caafimaad, lab iyo dhidig, faqiir iyo hani, xanuun iyo caafimaad, faqri iyo hina, cizo iyo dilla. shay walba laba ayaan ka dhignay baa ilahay hi si ad u antowdaan. ee fafiruu ila allah, xagga eebbahayna u yaaca, xagga makhluuqa ha u yaacina. hayrullaahi ka yaaca oo ilaahay xaggiisa u yaaca. man khaafa shay-an haraba minhu waman khaafa allaha haraba ilayhi. ninka shay ka cabsada, shayga uu ka baxsadaa, uu ka ordaa. ninka ilaahay ka cabsadana ilaahay xaggiisa u ordaa. haddii libaax hadda aad ka cabsato waad ka baxsan. haddii ilaahay aad ka cabsato xaggeed u baxsan? xaggiisa baad u baxsan. meel kaloo loo baxsanaya ma jirto, meel kaloo la isku dhiibaya ma jirto. xaggiisa isku dhiib. taskhiir ilaahay insaankan isagaa koonka u sakhiray. sakhara lakum maa fi lardi jamiican. barrigiibuu kuu sakhiray, buurihiibuu kuu sakhiray, baddiibuu kuu sakhiray, hawadiibuu kuu sakhiray, kaa'inaadka o dhan buu adiga kuu sakhiray. xoolihiibuu kuu sakhiray. wa ina lakum fi lancaami lacibrah nusqiikum mima fii butuunihi min bayni farthin wadamin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin baa ilaahay yidhi. wa ina lakum fi lancaam, nicmowlaydaad haysataana cibra inigu sugan baa ilaahay yidhi. nusqiikum waa niga waraabinaa mima fii butuunihi, shayga caloosheeda ay ku haysato, caanahaasoon kasoo dhex saarna baa ilaahay yidhi. dhiigiyo uusinta udhexaysaan kasoo saarnaa baa la yidhi, caano cad. taskhiir, xoolihii baa lagu sakhiray, cadcadii baa lagu sakhiray, habeenkaa lagu sakhiray, dharaartaa lagu sakhiray, biyahaa lagu sakhiray, hawadaa lagu sakhiray, arsaaqadii baa lagu sakhiray. malaa'ig baa ka shaqaynaysa arsaaqada adoon wax kalaba ka shaqaynayn, wax kalaba ka shaqaynayn. afarta malag ee qur-aanku sheegay, jibriil calayhi salaam iyo israafiil calayhi salaam iyo mikaa'iil calayhi salaam iyo malakul mowt, afartaasiba bini aadamka unba u khidmaynayaan. labana ruuxday ku shaqo leeyihiin, labana jasadkay ku shaqo leeyihiin. laba jasadkay ku shaqo leeyihiin. jibriil calayhi salaam wuxuu keenay waxyigii ruuxda bini aadamku ay ku noolaanaysay. mikaa'iil calayhi salaam arsaaqadii roobku ku shaqo leeyahay. israafiil calayhi salaam wuxuu ku shaqo leeyahay insaankan inay ruuxdu in insaanka jasadkiisa qiyaamaha dib loo soo nooleeya. haddana malakul mowtna wuxuu ku shaqo leeyahay qabd alarwaax, inuu bini aadamka ruuxda ka qabto. bal insaanka sida ilahay u karaameeya u fiirso. khalaqanaa, ilaahay isagayna abuuray, isagayna jirsiiyey, isagaa ilaahay noo nicmeeyey. yaa ayuha alinsaan, waa daaci weliba ilaahay uu ku yeedhayaa, kaama hadhin welibana. innii walinsu waaljinnu fii naba'in cadiimin akhluqu wayacbudu hayrii arzuqu wayushkaru siwaa'ii baa ilahay yidhi. anigii addoonkayga war baana dhex maray baa ilahay yidhi, war weyn baa naga dhex dhacay. akhluqu aniga abuuray baa ilaahay yidhi, wayacbudu hayrii, heyrkayna uu caabudayaa. anigaa abuuray, heyrkayna uu caabudayaa, heyrkayna uu rajaynaya, heyrkayna uu tala saaranaya, heyrkayna uu isku hadlaynaya, heyrkayna uu ictimaadayaa. arzuqu wayushkaru siwaa'ii, aniga ayaa arsaaqa baa ilahay yidhi, heyrkayna waa ku mahadinaya. arsaaqada ayaa bixiya, allah baa bixiya. khayrii ilaa cibaadii naazil wa sharuhum ilaya saacid baa ilahay yidhi. khayrkayga maalin walba uu soo degaya addoommahayga, sharkoogina anigu isoo fuulayaa baa ilahay yidhi. maalin walba waa taas koonkao dhan lagu sakhiray. hawadii, biyihii, dabayshii, cadcaadii, dharaartii, habeenkii, arsaaqadii, biyihii waa lagu sakhiray. acmaasha bini aadamka ka soo fulaysay ilaahay xaggiisa loo qaadayana waa acmaal ilaahay ka cadhaysiinaysa. intaad ilaahay caasinaysa iyo intaad ilaahay adeecaysa iyo maa badan, bal aduu is xisaabi. khayrii ilaa cibaadii naazil wa sharuhum ilaya saacid
khayrkaygii uu u degayaa maalin walba sharkooguna anuu isoo fuulaa baa ilaahay yidhi tucradu alacmaalu yowma alithnaini waalkhamiis buu nebigu yidhi maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa acmaasha addoommaha jirkooga ka soo baxda ayaa ilaahay loo bandhigaa buu rasuulku yidhi markay addoommadu ay ilaahay caasiyaan ilaahay jala wacala uu cadhoonaya ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waanu nicmaynayaa baa ilahay yidhi welibana waa isjeclaysiinayaa anigoo u baahnayn oo welibana ka kaaftoon baa ilaahay leeyahay waanu nicmaynaynaa dhinacii walba hareerahan nicmadii ka dhignay buu ilaahay yidhi umana baahnayn haddana bini aadanka anigoo u baahnayn oo waxbana ay ii qabanayn oo cibaadadoodu meel ii buuxinayn oo waxay ii qabanayaan aysan jirin hadday ii wada caabudaanna waxba ima ziyaadinayaan hadday wada caasiyaan waxba igama naaqusayaan yaa cibaadii low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulkii shay-an baa ilahay yidhi xadiis alqudsi addoommahaygiiyow kiinii hore kiina dambe jiniya insigiin haddaad noqotaan sida kiinayniigu alla kayaa badan waxba aniga ima ziyaadinaysaan baa ilaahay leeyahay culammada qaar waxay ku fasiraan waa nebi maxamed sal alla alay wasalam sida nebi maxamed ilaahay uu uga yaabay haddaad iga wada yaabtaan baa ilaahay leeyahay waxba aniga ima ziyaadinaysaan low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa dalika min mulkii shay-a haddii sida ibliis ii caasiyey ibliis baa khalqiga ugu qalbi adage ibliis siduu amarkayga u diiduu u jabiyey isagoo quwaddayda garanaya haddaad amarkayga u wada diidaan ood caasadaan waxba ima ziyaadinaysaan baa ilaahay yidhi ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waanu nicmaynayaa baa ilahay yidhi say ii jeclaadaan bas anigoo haddana ka kaaftoomo u baahnayn bini aadanka wayatabaqaduuna ilaya bilmacaasi wahum axwaju shayun ilaya macsiyad bay isku kay nacsiinayaan iyakoo wax walba aniga iga baahi badan baahida aniga ii qabaan iyo baahida biyaha baahida raxmadayda u qabaan baa ka weyn baahida arsaaqada u qabaan iyo yani baahida raxmadayda u qabaan baahida raxmadaydaa ka weyn iyakoo wax walba iga baahi badan ayay haddana macsiyaddii isku kay nacsiinayaan baa ilaahay yidhi man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin ninka ii soo jeestay ii toobadkeena ee dembiga intuu galo ka soo noqday ii soo noqda baa ilaahay yidhi meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena ii soo dhowaada ina allaha yabsudu yadahu billayl liyatuuba musii'u nahaar wa yabsudu yadahu binnahaar liyatuuba musii'u lleyl ilaahay gacmihiisuu fidiyaa habeenkii si kuwa maalinkii dembiga ku jira uga toobad aqbalo maalinkiina ilaahay gacmihiisuu fidiyaa si kuwa habeenkii gafka ku jira ilahay uga toobad aqbalo man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin kuwa ii toobadkeena ii soo noqda meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena oo iisoo laamba iisoo noqda faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii kooga iyaka ka mida ee xagga macsiyadda ku talax taga ee kayrkay caabuda ee shahawaadkiisa iyo hawadiisa raaca meel yaroo dhow baan uga soo baxnaayo waxaan ku nidhahnaa ayna tadhabu halkay tegaysaa ma rabbi anigaan ahayn baad leedahay ina badsha rabbika la shadiid ina rabbaka la bilmirsaad ma dheero kama dheero qariibun mujiib jabaabirada iyo fasaqada iyo dalamada iyo kafarada ilaahay uu ka argoostaa uu argoosanayaa maalinka qiyaamaha markay dadku soo baxaan buu rasuulku yidhi xagga dhawaaq baa ka imanaya xagga ilaahay markaasaa la odhanayaa ilaahay wuxuu odhanayaa cibaadii addoommahaygiyow min maalinkaan ini abuuray ilaad adduunyada ka imanayseen waxaad ku hadlaysaan oo dhanna waan maqlaayey waxaad samaynaysaan oo dhanna waan u jeeday waa nii aamusnaa maanta waa maalintaydii iyo aamusa waan argoosanayaa baa ilahay odhanaya ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii markaasuu ilaahay odhanayaa mee kuwii arsaaqadayda cunaya heyrkayna caabudaayey kuwii doolarka caabudaya doolarka salaadu ku dhaafaysa mee ilaa cibaadadu sanab keliya ma ahayne may haddaad qabiilkaaga aad islaamnimada iyo qabiilkaaga agtaada ku weynaado cabdulqabiil baa tahay cabdullahi ma tihid tacisa cabdu dinaari wadirham buu nebigu yidhi addoonka diinaarka iyo dirhamka caabudaya khasaaro hoogay buu rasuulku yidhi shahawaadkaaga haddaad caabuddo cabdu shahawaad baa tahay ka qabiilkiisa u ficiltamaya islaamnimadii daaqadda ka saaray ee qabiil ku badishay kaasina waa cabdulqabiila weeyaan man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu buu rasuulku yidhi ninka camalkiisu dib u dhiga maalinka qiyaamaha nasabku ka dhashay hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi
ha u ficiltami reetolka waxba kuu tari maayaan ifkanay wax kuu tarayn aakhira waxba kuu tarayaan ifkanay naafici weyda qabyaaladii oo ummaddeeni iyo dalkeeni baabiise ma aakhira wax kuu tari markaas xamiyadda iyo jaahilnimada iska saarno man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ninka camalkiisu dib u dhigu la hadho nasabkiisa hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam nabiga nin baa u yimid oo yidhi ninka xamiyad u dagaalamaya iyo ninka u dagaalamaya buu yidhi shujaacad raganimo iyo geesinimo iyo ninka qabyaalad u dagaalamaya iyo maa fii sabiili illaahi jawaamicu lxikam baa la siiya rasuulka xikmad buu ku jawaabo wuxuu yidhi ninka u dagaalama iclaa kalimat illaah kaun baa la dartiya buu rasuulku yidhi kuwa kale waa dabayl waa dambas ay dabayl qaaday weeyaan waxoogu ma jiraan bay ka dhigan tahay marka ilaahay ninka u baahan ayna aladiina cabaduu hayrii ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii buu ilahay odhanaya aawaya kuwii arsaaqadayda cunayay khayrkiina caabudayay ayna hum arsaaqadda ilaahay buu cunaayey nicmadda ilaahay buu dhex dabaalanayey ilaahayna adduunyada uu ku caasinayay bal reetolkii dartiid buu amarka ilaahay u jabinayay aaway buu ilahay odhanaya waa naar goosanaya maanta anigune marka qofku hadduu macsiyada ku talax tago ma baxsanayo walaalayaal ma baxsanayo adduunyada intuu nool yaha waa loo siita dheerayn laakiin ma dheeraanayo arrintiisu looma dheeraanayo laa mucaqiba lixukmih alaysa allahu bicasiizin dintiqaam alaysa allahu biaxkami alxaakimiin alaysa allahu biaclama bima fi suduuri alcaalamiin waa argoosan ilaahay marka cibaadadu maaha sanab keliya loo sujuudo maaha waxa li wixii amarka ilaahay ku garamariyo dhan waad caabuday ka dhigan tahay waxa li wixii ilaahay daacadiisa ku halmaamiya waad caabuday haddaad hawadaada raacdo hawadaada waad caabuday afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa ilaah macnaheegu waa maxay luqada carabiga ilaah waxaa la yidhi waa shayga markay dhibaata kugu timaado qulubtaada u ilato xaggiisa hada hu yusama lilaah man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin faman adbara minii canhum faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii halkee tegi buu odhanayaa meel kaleo tegaysa ma jirte ilaahay waa muncim isagaa inoo nicmeeyey bashar buu inaga dhigay caqli buu ina siiyey cilmi buu ina siiyey kownkan iyo kaa'inaadku inoo sakhiray hadafku adduunyada inoo keenin ilahay uu noo caddeeyey nicmadda weyn ee gaarka ee dadka gaarka la siiyey waa nicmatu liimaani walislaam iimaanka islaamnimada waa nicmad weyn nicmadaasaa ilaahay muslimiinta ku deeqay nicmadaha kale ee ka soo hadaloo dhan waa nicmad wakti yar ku xadidan weeyaan laakiin nicmatu liimaani walislaam ma xadidno bal qofka adduunyada intuu nool yahay ilaahay amarkiisa qaata ee noloshiisa diin dhammaystiran laga helo ee diintu kashkiisa iyo laabtiisa ay ka muuqato ee iimaanka islaamnimada noloshiisa laga helo adduunyadana raaxa iyo ciz iyo sharaf aakhirana waxaa u dambaysa noloshii daa'imkii abadiga ahayd adduunyaduna xaqiiqaba mahaba wawasaa biha ibraahimu baniihi wayacquubu ya baniya ina allaha astafaa lakum addiina falaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun wasiyatu lawaliina walaakhiriin waa maxay falaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun nebi ibraahim calayhi salaam wiilashiisa wuxuu ku yidhi ubadkaygiyow ilaahay diintaasu inii doortee yayna ajashiyo geeridu nii iman ilaa ininkoo diinta ay xadhiggaa haysta maahine hadday nii timaado ajashu ininkoo xadhiggaa haysana waad liibaanteen hadday ajashu inii timaado ininkoo xadhiggaa haysanna khasaara waxaad ku dhacdeen weligaan laga soo kamayn khasaarada adduunyada waa laga kamaa laakiin khasaarada aakhira lagama kamo dal bay dhibaata ka dhacday waa laga soo baxay
dadka badankooga way ka baxeen quruumo kaloo reer baadiyaha dalkiiba iska qabsaday dadkii wax yaqaaneen mutacalimiintiin way ka soo baxeen meeshana waa ka la iskaga yar cascasiya baawre la iska wada wato laakiin dhibaatada aakhira halkee looga qaxayaa ma jirto ma jirto meel loo soconayo haddii la yidhaha hebel hebel qiyaamaha uu khasaaray khasaaro wuxuu ku dhacay uu weligii ka soo kacayn qur-aankuna aad buu uga warramay maalinka qiyaamaha yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-an walamru yowmaidin lilah yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiih yowmaidin yawaddu aladiina kafaruu yubasaruunahum yawaddu lmujrimu low yaftadii yowmaidin bibaniih fakayfa tattaquuna in kafartum yowma yajcalu lwildaana shiba ilahay baa leh fakayfa laa tattaquun miyaanad cabsanayn baa ilahay leeyahy seenad u cabsanayn haddaad khaaliqiina inkirtaan oo nicmaduna siiye aad inkirtaan ood hawadiina iyo shahawaadkiina aad raacdaan miyaanad ka cabsanayn ugu yaraan maalin ilmaha yar markuu banka qiyaama la joojiyo timihiisa isla markiiba caddaan isku bedeli doonaan yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh waa maalin wejiyada qaarna ay iftiimayaan baa ilaahay yidhi qaarna wejiyadu ay madoobaanayaan yowma yafiru lmaru min akhiihi waa maalinta qofku hooyadii walaalkii ubadkii xaaskii ay kala baxsan doonaan maanta waa laysku yaacayaa adduunyada waa laysku yaacayaa hadday dhibaata timaado dadku dhibaatada maanta waa iska kaalmaysanayaan nin walba kii halkan jooga dadkiisii waxbuu u dirayaa laakiin qiyaamaha cidna cid wax u diri mayso hooyadaadii macaanayd ee ku dhashay haddii la yidhaahdo miisaanka ayaa lagu hayaayo hal xasana ayaa ka dhiman ee si hadday xasanaysa jannay galaysaa qof kasti wuxuu leeyahay maalintaa may ilaa naftayda jannahan ku hubsanaya cid maaqaano buu leeyahay yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a walamru yowmaidin lilah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim baleg yowma laa yajzi waalidun can waladihi waa maalinta waalidku ilmihiisa wax u qaban karayn cunuguna aabihi waxba u qaban karayn qur-aanku maalinta aad buu uga warramay laakiin ayaa maanta kuwaan toobaya iyaase waru hayaba warkana ayuuba saameeyeyba maanta ayuu saameeyey xasan albasri ayaa raabica ayuu ku yidhi maad guursatida waxay tidhi imaam xasanow waxay tidhi afar aayadood oo qur-aanka afar mas'aladood oo qur-aanka ku taalla ayaa walwalkii ayaa raaxadii iyo hamigii iga qaada bay tidhi waxay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay in maalinka qiyaamaha dadku ay laba u kala baxa inay dadku laba u kala qaybsamayaan qolana kitaabka midigtay ka qaadan qolana bidixday ka qaadan labadaa qoloqoladaa ku jiraa iyo caddayn bay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay miisaanka in acmaasha la saaraayo qofka khayrkiisa cuslaadana janno inuu ku waariyaayo qofka sharkiisa cuslaadana naarta inuu ku hoyanaayo labadaa midaan ku jiraa i kala caddayn bay tidhi jidka siraadin la marayo qur-aanku ii sheegay dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna naarta u gudbayaan labadaa qoladaa ka mid aha iyo caddayn bay tidhi fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir baa la yidhe fariiqaan ku jira ayaa i caddayn bay tidhi waa raabica humuum qofka meele u caddahay meeli ka madow dadka zamankan adduunyadana la weyn dadkii qalbigooga iftiinku galayna aakhirada la weynaatay aakhiradii markay weyneeyeenna noloshii adduunyada waa u dhib yaraatay raaxadii adduunyada waa ifka u soo baxday maxay tahay adduunyadu cish maa shi'ta fa inaka mayit jibriil baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi intaad doontaba noolow kii dhinta un baatee qorshaa ku darso wacmal maa shi'ta fa inaka majziyun bihi camalkaad doontana la imo waa laga abaalmarin doonaa qiyaamahiisa ogow waxbin man shi'ta fa inaka mufaariquhu ciddaad doontana jeclow adigay ciddaad isjeceshahayna mawdkani kala geyn doone caalamkana ku nool lahay marka loo eego cawaalimta ka dambaysa caalamkana adduunyadu wuxuu noqonayaa dhibic marka loo eego cawaalimta dambaysa caalamu dunya waa 60 sano 70 sano caalamulbarzakh ayaa ka badan caalamka adduunyada dadkii zamankii nebi aadan dhintay ilaa joogadeenna caalamkaasay ku jiraan qolana way ku cadaaban tahay qolana way ku raaxaysanaysaa waa loogu janneeyey alqabru ima rawdatu min riyaadi aljanna wa ima xufratu min xufari naar buu nebigu yidhi
qabrigu laba mid buu noqonayaa, ama beerbeeraha jannada ka miduu qofka u noqonayaa, ama godgodadka naarta ka miduu u noqonayaa. sayidina cusmaan radia allahu canhu mar alle markuu qubuuraha yimaada ilmadaa ka daadanaysay waxaa la yidhi cusmaanow jannihi naar marka laga sheekay ma oydide qabriga maxaad la oydaa markaad aragto? wuxuu yidhi qabrigu waxaan ka maqlay nebiga oo leh calayhi salaatu wasalaam, qabrigu waa guriga guryaha aakhiro ugu horreeya. hadduu qofku halkaa ku nabadgalo nabadgelyo ayaa u dambaysa, hadduu halkaa ku cadaabo ku khasaarana khasaarihii weynaabuu u gudbayaa buu yidhi. zuraarata ibn abi awfa masaajid buu ka ahaa, imaam taabici buu ahaa. salaadii subax buu jamcii tujiyey, rakacaddii hore markuu suuraddii faatixada u dhameeyey suurat lmudathir buu ku xijisiiyey. markuu marayo faidaa nuqira fi naaquur fadalika yowmaydin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir. maalinta suurta aan ku dhifanna baa ilahay waa maalin culus, waa maalin culus weeyaan. maalintaa dadka gaaladaana uma fududo baa ilaahay yidhi. aayaddaa markuu marayay ninka imaamka taabiciga jaliilka uu dhacay oo nafti baa ka baxday. sayidina cumar masaajidkii nebigu soo galay habeen inan yaroo shaab buu arkay oo salaatuleyl tukanaya oo soodka kor u qaadaya. markaasuu cumar istaago uu dhegaystay. yarkii yaraa markuu faatixadii dhameeyey wuxuu ku xijisiiyey watuur wa kitaabin mastuur fii raqin uu dhegaystay cumar markuu maraya yarkii yaraa ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic. halkaa markuu maray cumar uu suuxo uu dhacay, gurigiisii baa la geeyey. 30 maalmood buu xanuunsanaa, xanuunkiisana wuxuu ku yimid lama ogeyn. sayidina cabdiraxmaan bin cawf ayaa loo keenay cunto isagoo sooman. markaasuu qur-aankiibuu kala furay, waa qabla alfutuur weeyaan. qur-aankiibuu kala furay, markaasuu akhriyey ina ladayna ankaalan wa jaxiiman wa طacaaman daa gusatin wa cadaaban aliima. طacaamka ahlu naarka aayaddu ka warramaysaa. aayaddaa markuu taabtay sayidina cabdiraxmaan uu ooyey ilaa maalintaa uu afuri kari waayey. sidiibuu ku seexda habeenkii gaajo. nebiga calayhi salaatu wasalaam xalaqaadkiisii ka mida ayuu nebigu sal alla alay slam ku akhriyay aayaddaas. waxyigiibaa ku soo degay, isla markiiba asxaabtu waxyiga u gudbiyey. yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara. kuwii ilaahay nebiga rumeeyow, duulka ilaahay nebiga rumeeyow, lafihiinni iyo ehelkiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi, ee gaajo kala baxsada lama odhan. gaajaa laga soo yaacay, dhibaato keliya laga soo yaacay. 10 dhibaataa maanta faraha lala galoo la laami kari layahay. quu anfusakum waahliikum naara. mufasiriintu waxay ku fasireen lafihiinana diinta barta, ubadkiina iyo ehelkiinana diinta bara baa ilaahay yidhi. waxaa yeele diintaa lagaga badbaadayaa naarta. aayaddaa markay soo degtay waquuduha annaasu walxijaara, markuu nebigu aayaddaa ku akhriyey nin xabashiya nebiga hor fadhiyey majliskiisa, lilma ayuu sii daadiyey, uu ooyey, oohintiisiibuu ishaysan kari waayey ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam. yaa muxamed kan hoostaada ku weeye waayo? markaasuu yidhi yaa jibriil waa addoon reer xabashaa oo ahlulkhayr oo mu'mina, aayaddaasaan ku akhriyo uu adkaysan kari waayey buu yidhi. markaasuu yidhi yaa jibriil yaa muxamed, ilaahay wuxuu yidhi wacizatii wajalaalii wairtifaacii fowqa carshii laa tabkii caynu cabdin fi dunya min makhaafatii ilaa akhartu daxikaha fi ljanna. ilaahay baa leh sharaftayda weynidayda carshigayga sare ayaan ku dhaartee addoommahayga ka mida adduunyada dusheeda ma ooyo, cabsadayda lama ooyo. haddii la helose maalinka la qatan yahay la qaawan yahay qiyaamaha ayaan qosolkiisa badyaabaa ilaahay yidhi. 60 sano ayuu ku dhammaysanayaa taacadda ilaahay iyo cabsidiisii iyo khawf iyo khashyad iyo bukaa. abaalgudkiisu wuxuu noqonayaa maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigaya uu qoslaya. allah inaga dhiga kuwaas. fadadkii hore quluubtoodu markuu iftiinku gale nuur aliimaan iyo nuur alcilmi iyo nuur alqur'aan iyo nuur alhidaaya, markay 4taa nuur qalbigooga uu saameeyey, aakhiradii baa u caddaatay. qur-aankay fahmeen, waxyigiibay fahmeen. cumar iyo abubakar markuu nebigu intiqaalay calayhi salaatu wasalaam ayay yidhaahdeen, abubakar baa ku yidhi cumarow ummu ayman inooge hambuuqanne, sidii nebiguba u ziyaaranaya hanu ziyaaranay inooge. markaasuu wayse soo raaceen, ummu ayman bay u yimaadeen. markaasuu mar alliya markay aragtay abubakar iyo cumar oo wada socda, ummu ayman way lilmaysay.
markaasuu cumar abubakar baa ku yidhi yaa ummu ayman miyaanad ogeyn nebiga ilaahay agtii inay u khayr badan tahay ma nebiga waad nagu xasuusanaysaa macnuhu weeyaane waxay tidhi waan ogahay nebi maxamed alle agtii inay u khayr badan tahay waan ogahay waxaan la ooyay geeridiisa kama ooyine warkii samada nooga imanaya baa naga go-ay bay tidhi cajiib bal ummaddu siday qur-aanka ugu xidhneed u fiirso dhegayso oo faham gabadha walaasheeda muslimaday zamanka dadku siday qur-aanka ugu xidhnaayeen eeg rag iyo dumar maantana maxaa lagu xidhan yahay maxaa lagu xidhan yahay maanta iimaanku waa maxay takdiibun binnadar wa tasdiiqun bilkhabar waxay naf isho arkayso dhan beene wax samada ka yimid ee warana rumee hada huwa aliimaan qur-aanka iyo xadiiska rumee warkoogana qaado wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin maxaa yeelay waa been waxba kama soconayaan labadaasunbaa dhaba labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyadu maxay tahay ba walaalayaal maxaa la iskugu daalinba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhex degin guri bilaa musqula ma dhici karto laakiin musqusha la dhex seexan maayo markay xaaja ku qabato unbaad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhaha musqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanayaa majnuun adduunyadu waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tan un baan aqaanaa tii dambe ma aqaana qorshahayga way ka baxday tan un baan aqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas ilaa dabiibuu u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga la musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado qadra daruura meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan hayloobin ha halmaamin arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin daacadda ilaahay arsaaqadii kasbigaagu inuu ku seejin alrisqu biqadri lmuqadar baa la yidhi arsaaqadu waa inta ilaahay kuu qadaray weeyaan wax ziyaada ma helaysid arsaaqadu waa inta ilaahay kuu qadaray caalamkan waa caalam yar marka loo eega caalamka qabriga caalamka qabriguna marka loo eega caalamka qiyaamaha uu yaraanayaa caalamka qiyaamaha marka loo eega caalamu ljanna wanaarna caalamkaasna uu yaraanaya isna laakiin maxaa lagu badbaadayaa waxaa lagu badbaadaya halkana laga qaadanayaa waladadka umuka ya bna aadama baakiyan wannaasu xawlaka yadxakuuna suruura faxfad linafsika an takuna idaa bakow fii yowmi mawtika daaxikan masruura ilaahay nin shaacira wuxuu yidhi ina aadanow maalintii adduunyada aad imanaysay waxay hooyadaa ku dhashay adoo ooyaya dadkuna agtaada ay faraxsan yihiin cunuga markuu dhalanayo baqaaq uu qaylaya isagu laakiin dadku way faraxsan yihiin faxfad linafsika naftaada intaad nooshahay ilaaliyo amarka ilaahay ku ilaaliyo diinta ilaahay ilaalso oo iimaanka ilaalso oo islaamnimada ilaalso oo amarka ilaahay ha sii dayn si maalintaad dhimanayso aad adduunyada uga tagtaa adigoo faraxsan dadkuna agtaada ay ku ooyaan dadku waa labada nina adduunyada wuxuu ka tagaa isagoo faraxsan ninna waa mustareex ninna waa mustaraax nin waa nin adduunyadii looga raaxeeyey oo daartii aakhirada raaxadii baa loo qaaday ninna dhimashadiisa markuu dhinto dadkii baa ka raaxaysanaya hebel ma dhintay haa qaar baa odhanaya baguu dhintay kaasi fitnaawi buu ahaay baguu dhintay ninna waa nin mustaraaxa adduunyadii baa looga raaxeeyo caalamu tacab baa laga qaaday caalamu raaxa ayaa la geeyey caalamkii wixii bini aadamku u baahnaa lagu dhammaystiray baa loo qaaday maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waa dhiman adduunyadu ma dhammaystirmayso low kaana liibni aadama waadiya min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan ina aadan haddii la siiyo tog dahab oo socda buu nebigu yidhi ku labaad buu jeclaan buu yidhi haddii ku labaad la siiyana ku saddexaad buu jeclaan buu yidhi ina aadan afkiisa wax kale ma buuxiyaane qabriga marka la geliya ciidda lagu guro unbuu dhargaa buu rasuulku yidhi adduunyada lagama dhargo
ma dhargaysid maxaa yeele laguma talagelinba shahawaad waxay bini aadamku u baahan yahay adduunyada laguma dhamaystirin daar baa jirta lagu dhammaystiray waxay naftu u baahan tahay hadda subaxdii bal u fiirso magaalada dhowtonka meelahan aad tirahdaan centerfield baan idhaa anaku wasta almadiina waddada hanweyga ee u socota magaalada bartamaheega ayaa subaxdii maaragtaan rasha war oo zaxmada haddaad tiraa dadka halkee tegaysaan waxay ku dhahayaan waan shaqo tegaynaa galabtiina waddada kale ayaa zaxmada oo cidhiidhiya haddaad tiraa halkee tegaysaan wuxuu ku leeyahay waa raaxo tegaya gurigaygii baan tegayaa reerkaygii iyo horadaydii baan u tegayaa meesha shaqaduna waa meel gooniya meesha raaxaduna waa meel gooniya adduunyadani meeshii lagu raaxaysanaya ma aha halkan shaqaa loo yimiday meesha raaxada waa loo noqon doonaa idaa dakhala ahlu ljannati aljanna yunaadii munaadin biana lakum an taxyow falaa tamuutuu abada tasixuu laa tasqamuu abada tancamuu laa tab'asuu abada tashubuu laa tahramuu abada ahlu jannahu buu rasuulku yidhi markay jannada galaan 4 shay baa loo bishaaraynayaa waxaa la odhanayaa ahluljannow maanta laga bilaaba waxaad leedihiin nolol aan dhimasho dambe lahayn shabaabnimo aan gabow dambe lahayn nicmad aan dhibaato dambe lahayn caafimaad aan xanuun dambe lahayn baa la odhanayaa ayna dunya xadiis buu nebigu ka sheekeeyey ibnu mascuud uu wariyey yaa adnaa ahla aljannati manzila jannada dadka galaya ka ugu darajo yar buu nebigu maalin ka sheekeeyey wuxuu yidhi waa nin ka soo baxaya jannada buu nebigu yidhi jannadu ka soo baxaya gurguurad buu kaga soo baxayaa albaabkii jannadu ilaahay buu hor imanayaa ilaahay baa odhanayaa cabdi addoonkaygiyow orodoo jannada gal waa taase albaabkii jannadu imanayaa indhihiisii baa looga dhigayaa jannadii inay buuxsantay markaasuu noqonayaa yaa rabbi jannadaad teg gal igu tiri way buuxdaa meelaan ka dega ma haysto markaasuu ilaahay odhanayaa ma buuxday orodoo noqo gal haddana uu imanayaa mar labaad mar saddexaad markii afraad baa ilaahay odhanayaa orodoo jannada gal oo teg oo gal jannada adduunyadii iyo 10 baad leedahay keligaasi adduunyadii imisa 10 waa saaxada arlada weeyaan amaa waxa jannada yaalla adduunyada ma yaallin adduunyada maxaa yaalla markaasuu odhanayaa ataskharu bi ilaahu ma igu dheeldheelaysaa aw tadxaku bi mise waad igu qoslaysaa adigaaba boqorkiye maskaxdiisay ka dhaadhacayn arrintaas adduunyadii iyo 10 baa lagu siiye soco imaam qurtubi kitaabu tadkira wuxuu ku sheegay ninkaasi madaxweyne marka dawlad loo magacaabo koormeer buu sameeyaa dalkao dhan buu soo maraa gobollada tuulooyinka distrigyada meel kastuu soo maraa wasaaradaha ninkaasi wuxuu yidhi halkanuu ka bilaabayaa jannadiisii halkanuu ka bilaabayaa ilaa dhinaca kale uu ku soo wareegayo meesha uu mar marana mar labaad isha ku qaban maaye safarka wuxuu ka qaadanayaa 1,000 sannadood imise sano 1,000 sannadood fayaatii wuxuu imanayaa albaabkii jannadu isa soo taagayaa xawralcayntiisii baa ka hor imanaysa tanduru ilayhi wayanduru ilayha buu ibnu cabbaas way eegi eegmadoo keliya ayaa qaadanaysa buu yidhi 40 sannadood imse sanaad dalka joogtaan annadra faqad tucaaniquhu wa yucaaniquhaa uu ku boodayaa way ku soo boodaysaa way isku dhegayaan waalmucaanaqatu qadra 40 sana buu yidhi cabdullahi ibnu cabbaas mucaanaqada oo keliya waxay saysanayaan 40 sannadood oo kale u soconayaa maqsinkii cuntadu ay taallay buu fadhiisanayaa 700 sano uu cuntada cunayaa bas muddada u yar uu cuntada cuno waa 700 sano ayna addunya maxay tahay adduunyadu xawralcaynta waan ka sheekayn lahayna kolley haweenkuna waa nala fadhiyaan bayaanka waa nala dhegaysanaya muxaadarada xaqoogana waan sheegaynaa cajiib nicmadaasaa ilaahay dadka muuminiinta u diyaariyey yatuufu calayhi 10,000 khaadim buu nebigu yidhi ninka jannada galaya dadka jannada gale ugu jaga yara ugu faqiirsan ee ugu faqiir lama dhihi kare ugu jaga yar waxaa dushiisa dawaafaya buu nebigu yidhi 10,000 oo khaadim baa dul dawaafaya khaadimka kale arki maayo khaadimkan sharaabka iyo cuntada uu sida ku kale ma sido guryaha jannada buu nebigu yidhi sida guryahan adduunyada ma ahine
sidaasay carshiga uga laalaadaan buu rasuulku yidhi. asxaabtu way yaabeen, yaa rasuulallah guryaha sideen u galaynaa? wuxuu yidhi sida shimbirahaad u duulaysaan aad u galaysaan buu yidhi. cuntaada cunaysaan, biyaha ad cabbaysaan, sindhe iyo kaadimidna noqoni maayaan. cuntadu waxay isku bedelaysaa daaco, daacadaasoo ka udgoon miskiga. sharaabku wuxuu isku bedelayaa dhidid, dhididkaasoo isaguna miskiga ka udgoon. ma dhimanayaan, ma gaboobayaan, ma daalayaan, ma gaajoonayaan, ma haraadayaan, ma bukoonayaan, calolxuma ma jirto, qabyaalad ma jirto. qabyaalad halkaa may socon, ma jirayso. wanasacnaa ma fii suduurihim min khillin. albaabka jannada markay joogaan laba shayba waa laga dahirayaa. hadday jirhkoogiina jannada intay gelin baa la bedelayaa. laabtooda wixii ku jiray khilli iyo xasad iyo dabeecaddii xunayd iyo buqdigii iyo wixiina halkaasaa lagaga reebaya. laa yasmacuuna fiiha lagwan ilaa salaama. wax kala maqli maayaan, salaama bay maqlayaan. waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bima sabartum nazulan min ghafuur salaamun qawlan min rabbi raxiim. dhexdoodana waa salaam, malaa'igtuna way salaami. xagga salaamkana salaam baa ka imanaysa. salaantee ka imanaysa? salaamtaa waxay ka timidaa la odhanayaa min alxayi aladi laa yamuut ila alcabdi aladi laa yamuut. diinta iyo iimaanka islaamnimadu waxay bini aadanka siinaysaa sifa sifaadka ilaahay ka mid a. alabad, sifat alabad buu yeelanaya qofka bini aadamku markuu jannada galo. min alxayi aladi laa yamuut waxaa la odhanayaa salaantani waxay ka timiday ilaahay noolahay aan dhimanayn. waxay u imatay addoonka ilaahay isaguna aan dhimanayn haddee toole. nicmadaasaa ilaahay noo diyaariyey. nicmaddaa waxaan ku helaynin waan haysanaa. iimaankaan ku helaynaa, islaamnimadaan ku helaynaa. haweenkuna ilaahay waa u nicmeeyey oo nebigu ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida almar'atu ayima imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhalat aljanna. raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye, laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar. naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi haweeneyda dhimata iyaduu ninkeygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi. rasuulku xadiis waxau ku yidhi dadka salaada tukada albaab bay jannada ku leeyihiin la yidhaha baabu salaa. dadka soonka laazima albaab bay ku leeyihiin baabu rayaan la yidhaha. dadka sadaqada bixiya albaab bay ku leeyihiin baabu sadaqa la yidhaha. dadka jihaadka u dadaala albaab bay ku leeyihiin baabuljihaad la yidhaha. abubakar baa yidhi biabi anta wa ummi ya rasuul allah. hooyaday aabbayba waan kugu fidayn oo kugu furanaye 8 albaabay jannadu leedahay nin ka galayo looga yeedhaya ma jiraa buu yidhi. markaasuu nebigu uhi nacam wa arjuu an takuuna minhum. haa way jiraan rag 8 albaabee jannadaba looga yeedhayo la odhanayo kan ka soo gal, kan ka soo gal. way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baan rajay buu rasuulku yidhi abubakar ow. abubakar keliya ka gali maayo 8 albaabee waxaa la galaysa gabadha saalixadda. ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa. hadday haweenaydu buu nebigu yidhi 5 waqtina tukato, bisha rabadaanna ay soonto, farjigeegana xumaanta ka dhowrsato, ninkaygana ay adeecdo, 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi. 8 albaabee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi. hadday gabadha laga hela 4 camal, bisha rabadaan oy soonto, 5 waqti oo ilaaliso, xumaantoo ka dhowrsoonaato, iyo zawjkeega oy adeecdo, 4 gabadha laga hela buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanee la geli doontaa qiyaamaha. waa la weydiiyey nebiga, gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka muuminaadka iyo xuralcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi. caaisha weydiisay, wuxuu nebigu yidhi gabadha muuminadda ayaa xuralcaynta ka fadli badan buu yidhi. waxay tihi maxaan kaga fadli badannay? waaba xuralcayn oo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye. wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna. waxay kaga fadli bateen xuralcayntu haweenka muuminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan, salaada ay tukanayaan, iyo raggooga ay adeecayaan. fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayni dhigtay. nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horaanba. wuxuu nebigu yidhi hooyadaa, haddana hooyadaa, haddana hooyadaa, haddana aabbahaa buu rasuulku yidhi. dhegayso gabadhayda muslimaday, diinta islaamku hoos kumay dhigin, xaqaagiina may qarine, bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday.
sayidina cabdullaahi bnu cumar buu nin u yimiday lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan cabdullaahi bnu cumar buu u yimiday nin markaasuu yidhi yaa ibnu cumar hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeye xaqeygii ma guday mise ma gudin wuxuu ku yidhi xaqeygii kugu lahaydood gudday iska daaye maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi xaqiina waad leedihiin xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday dhaqan baad leedahay diin baad leedahay islaam baad tahay mu'minad baad tahay waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan uu raalliga kaga noqday waddadoodii maryan binta cimraan ku dayo aasiya bintu masaaxim ku dayo faadima binta muxamed ku dayo khadiija bintu khuwaylad ku dayo dadkaasaa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam haweenka ilaahay afar buu ka doortay buu nebigu yidhi afartaasina waa maxay waa maryan waa nebi ciise hooyadii waa aasiya weeyaan waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd halka baydka guriga ninkaa rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilahay ku caabuday aasiya faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadba waa u dul qaadatay adduunyadana way ka saay qaadatay waa khadiijo oo qofkii u horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd diinta islaamku meel sarayna dhigtay raabica ayaa la weydiiyo lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacda nebiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaan la yidhi waxay tidhi gabadh xikmad lahaydoo afartaaba annaka unbaa dhalla bay tidhi subxaan allah caqligu waa cajiib caqliga allah inoo hagaajiyo boqoradana annaka unbaa dhalla imaamyadana annaka unbaa dhalla nebiyadana annaka unbaa tarbiyadanoo dhalla bay tidhi allah ina fahamsiiyo khayrulkalaami maa qalla wadalla ilaahay diintaa buuna siiya islaamnimada diintaa inaan adkaysano oo nicmaddaa u aragno nicmad u aragno waa nicmade ayaa la doonayaa walaalayaal oo dalkanaan imanay dhaqankeennii iyo diinteennii iyo akhlaaqdeennii iyo caqiidadeennii inuusan waxba ka bedelin ittaqi llaha xayumaa kunta buu nebigu yihi meeshaa doontaba joog oo ilaahay ka yaab badbaadadeenna aan ku badbaadaynana dalkan iyo meel kastan waxa weeyaan waa inakoo maaragtaanay dhammaanteen istaagna halkii nebigeennu istaagay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ina siiyey dadaal hadday muslimiintu dadaalkaa fahmaan ay u kacaan iyakuna ay badbaadayaan usradooda iyo dadkoogana ay badbaadin karayaan muuminka dhabta ma badilmay waxbuu badilaa lama saameeyo waxbuu saameeyaa dhowr nin oo caraba ayaa ka tegay khilaafadii dowlatu lamawiya ardul islaam bay ka tegeen indonesia iyo malaysia u tegeen tijaara iyo business calaa manhaj alislam bay ku tijaaraysanayeen akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii baa lagu islaamay akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii 8 kun buu ka diray cumar ka diray maaragtaanay madiina masar buu u diray 8 kun baa dalkii oo dhan badishay mu'minku markuu u socdo hadafkiisu markuu yahay iclaa kalimati illaah ixyaa addiin fi lcaalam nashr nicma mu'minku markuu ka dhiga hadafkiisa inuu islaamnimadan qaado caalamka gaadhsiiyo inuu nicmadan ummadda ugu yeedho inuu diintan caalamka uu meel walba u maro hadafkaa markuu muslimku hadaf ka dhigto uu u safro uu dhaqaalo u bixiyo u dhaxo u dhoofo ma badilmaya isagaa wax badilaya lama saamaynaya isagaa wax saamaynaya ta keliya aan ku badbaadayna waa maxay ee xifaadadeennu ay ku jirtaa waa inakoo ilaahay diinkiisa ka shaqayna rag iyo dumar ummaddan wuxuu kaga tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam manhajka uu kaga tegay waa maxay 3 shay zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd cilmi iyo camal iyo dacwa 3daas zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd nin kastoo saxaabiya gabadh kastoo saxaabiyada waxay ahaayeen caaliman bidiinihim diintooda way yaqaaneen caamilan bidiinihim diintoodana way ku camal falayeen daaciyan ilaa diinihim diintoodana ummadda way ugu baaqayeen alcilmi walcamal waddacwa 3daas waxay ka soo baxeen manbacii masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma tegin nebigu ummad maaragtaanay adduunya ku hamoonaysa kagama tegin caalamkee wuxuu kaga tegay ummad aakhiradu ay la weyn tahay oo diintu ay la weyn tahay oo iimaanku uu la weyn yahay oo islaamnimadu ay la weyn tahay cuqba binu naafic madiinu ka dhaqaaqay
masar buu yimiday libiya ayuu yimiday muxiit alatlas maqrib intuu istaagay zamankan dalka waaga zamanka dalkanaa joogno lama aqoonin faraskii intuu badda geliyey buu yidhi yaa rabbi low calimtu waraa hada albaxri unaasun laballaqtu calayhim laa ilaaha ila allah yaa rabbi haddaan ogahay baddaa dad inay ka shisheeyaan laa ilaaha illa allah baan gaadhsiin lahaa buu yidhi alaan arjac ila almadiina haddaan ku noqonayaa dalkaygii madiina maxaanu noqonayaa lianna alarda intahat leanna dhulkii baa dhammaaday buu yidhi haddeetoole uu celiyey faraskii jazaa'ir buu markaa ku dhintay halkaasaa lagu aasay madiinuu ku barbaaray cukaasha radia allahu canhu ree madiina ayuu ahaa waxau ku aasan yahay suudaan aba ayub alansaari ree madiina ayuu ahaa istanbul buu ku aasan yahay abi waqaas ree madiina ayuu ahaa siin buu ku aasan yahay cabdiraxmaan alkhafiqi ree dimashq buu ahaa faras buu ku aasan yahay bilaal ree maku ahaa wuxuu ku aasan yahay dimashq kam min asaxaaba caalamka ku aasan kam muslimiina dalkan maanta ku aasan laakiin hadafka asxaabtu u socdeen iyo hadafka muslimiinta maanta u socdaan waa laba aan islahayn oo isku dhoweyn weeyaan saamaxa hoosta waxba aygu qabanina hadafkay u socdeen iyaku iyo hadafkaan maanta u soconna iskuma dhowo walaalayaal lidaalika waa inaan niyaddeena bedelnaa dalka niyaddaan ku imanay waa inaan bedelnaa waa ilaa haddii kale khatar baan ku jirnaa niyaddeeni waan bedelaynaa maxaanu bedelaynaa inaan dalkan joogno laakiin aan diinta ilahay ka shaqayno oon ka bilowna shaqada diinta muslimiintii hor dalkan timide me aaway dadkii yimide dalkan ayna hum maanta inta soo galaysa maskiidkaa ku farxin ziyaaraadka bax jawladda bax raac jamaacadada dibadda u bax waad yaabi doontaa tastaqrib ayaa u soo baxaya innaka halkii nabiga taagan calayhi salaatu wasalaam man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa mina buu nebigu yuri falaysa minhum ninka muslimiinta dhibaatadooda ka walwalin ka murugoon naga mid maha buuhi annaka ama muslimiintaba ka mid maaha dhibaatada ugu weynee islaamka haysata waa maxay bucdu can iddiin dhibaatada ka weyn waa dhibaatadee ilaahay oo laga fogaaday dhibaatadee ka weyn allah ina fahamsiiyo dee niyadda ma bedelaa haa dhahada dee bal wixiila niyaddii waan bedelow gacanta taag mustaacidiin dhahada oday baa beri nagu yidhi wacdigiinaasi uu macaan yahe bixitaanka un maad ka reebtaanaa buu yidhi kollay meel hoo u baahan hadal wax ma ka taraa yaa saafir tajid ciwadan caman tufaariquhu wansab faina aladiida alcayshi fi nnasabi inii ra'aytu rukuuda almaa'i yufsiduhu in saala taaba wain lam yajri lam yatibi alusud lawlaa firaaqu lardi maftarasat wasahmu lawla lqawsi lam yusibi buuhi imaam shaafici libaaxu muxuu libaax ku noqday kayntiisuu libaax ku yahay muslimku wuxuu qiimo ku yeelanayaa markuu ka shaqeeya shaqada diinta hadday biyuhu fadhiistaan waxaan ogaaday buuhi imaam shaafici biyuhu inay xumaanayaan hadday socdaanna inay biyuhu daahir yihiin cidda kalena ay dahirinayaan ummaddan socodkay qiimo ku leedahay walaalayaal fa insha allah niyooda inaad socotaan ziyaarta dadka socda nebi maxamed baa socday calayhi salaatu wasalaam khayru man daba calaa wajhi alardi waa ina cabdillaahi weeyaan ma ka fadli badan tahay adigu wa qaaluu ma lihada arasuul yaakulu aطacaam wayamshi fi laswaaq lawlaa unzila ilayhi malak fayakuna macahu nadiira waa maxay kan suuqa wareegaya nebiga lagu yidhi u wareegay halkay joogaan buu dadka nebigu ugu tegay dadku waa laba weeyaan muqbiliin iyo mudbiriin dad khayrka jecel iyo dad khayrka aan jeclayn iyo maa badan 90% ma soo galeen masaajidda dacwadda waa maxay dacwadda masaajidka laga jeedinayana waa dacwatu raaqibiin baa la yidhaha dacwadda dibadda la tegayna waa dacwatu hayr araaqibiin baa la yidhaha labadana waa loo baahan yahay barkadda biyaha haddii laga darsado biyo lagu shubi waayo maxaa dhacaya haddii dadka dacwadda loogu yeedhi waayo masaajidda inta soo galaysa way dhammaan way dhoofayaan mid baa dhiman mid baa noqon mid baa xanuunsan mid baa waalan masaajidka cidluu ka soo bixi marka waa in la helaa dad shaqadii dibadda qabto ummadda kusoo xidha culummada iyo masaajidda marka jamacaadku wax kale lama socdaan wax jadiida ma wadaan mujtamacan iyo waxaa isku xidhayaan iyo culummada masaajidda faham walaal fa marka allah ina waafajiyo allahna inagu anfaco le jamacadduna barri weyna la joogaanna soo ziyaarta usbuuc kadibna kanada inay u gudbaan baa laga yaabaa waana nii soo noqon doonaa dee wixii diyaara inay ile martidu xaq bay leedahay ma tahay samaa ya dee martida in la yar dhaweeyena xaq bay u leedahay maxaad u dhaweyn leedihin isku noqda
in sha allahu tacala waan ila joognaa allahna khayrka na waafajiyo wa sala allahu calaa sayidina moxamed